الله الرحمن الرحيم كسوري وهذا شيء كني كفاية دقون وحن بلاد دونا عشرة حنا أو سيدا بلوجر لو سمستو بلوجرسكو وميل ويب سايت وجوجل لي هي كاس أو كعاونية إن يوان كسميستيد مركز يوان كسميستيد كبعدين عاد كسو بيسيد haddii aad wax ka hadlaysid mowduucyada ama topigyada aad ka hadlaysid aad u soo gudbinaysid bulshada haddii caafimaad noqoto haddii ay noqoto qoraal haddii noqoto warar haddii wax walba aad u soo gudbinaysid aad u soo gudbin kartid bulshada ama dadka taageerayaasha ku xidhan kaas oo ka caawinaya in dad fara badan aad u gudbisid wax lacagana aanad bixinayn oo sanad walba waxba lacag ma bixinaysid sababtoo ah haddii aad samaysatid website-ku waxa laga rabaa sanad walba inaad lacag bixisid laakiin markaad blogger samaysatid lagama rabo wax lacag ah inaad samaysatid kaba sii darano isaga ayaaba ka samayn karaysaa lacag maanta waxaan ku baranaynaa marka bloggerku waa maxay bloggerku waxa weeyaan haddaad qoraatahay ama wax soo guriya ama bulshada caafimaad u soo gudbiya ama wax soo gudbiya waxaad samaysanaysaa sida Yusuf Garaad kale Yusuf Garaad wuxuu leeyahay blogger baa la yiraahdaa blog waxa Yusuf/Grad blogspot baa la yiraahdaa marka Google ale waa free wax lacag lagama qaadayo laakiin wuxuu soo gudbinayaa aaraadiisa marka website kan oo kala samaysan karta bloggers qoraaladiisa ku soo gudbinaysaa xogtaada ku soo gudbinaysaa okay Yusuf Grad iyo wax walo aad adu tabato aad qabtid ayaad ku soo gudbinaysaa haddaad bulshada doonaysid inaad u faa'iidaysatid oo caafimaad ku soo gudbinaysid xog caafimaad ku soo gudbinaysaa wax lacagna lagama qaadayo waa free inta doontid baa soo gudbin karaysaa kii aan anu leeyahay ka faa'iido aqoon wax weeyaan isna waa kan ka faa'iido aqoon bloggerkiisu kan Yusuf Garaad wax weeyaan hal qof baa leh mana design karaysna design qurux badan aad u soo jiita male marka waad qurxin kartaa oo sidan aan kayga ka dhigo kale ayaad ka dhigi kartaa waxa u meteli kartaa oo ka soo dhigi kartaa oo waxa u meteli kartaa oo ka dhigi kartaa sidii website caadi ah oo kale u design karaysan ayaad ka dhigi kartaa qofka web developer ama web designada sameeya ayaa garanaya marka sidan oo kale u samaysatid kaliya tay waxa caqabad kaliya ta ku haysato waa blogger sports hadduu ku hirgalo oo uu noqdo website ay ku xidhan yihiin kumanaan qof bil walba ay ka daawadaan intaas oo kun oo qof ay eegaan waxaad samayn kartaa marka dambe magacaaga waad iibsan kartaa ka faa'iid aqoon.com oo kale ayaad ka dhigaysaa kabacdi marka dadka ayaad ugu baraysaa wax kaas ayaan baran doonaa sida loo sameeyo step by step ku baran doonaa hab inagoo talaabo u raacayna kolba qof u sharaacayna imika kan waxa weeyaan ka faa'iido aqoon.com blogspot soo qatid ka faa'iido aqoon badanaysa waxaad ka baran kartaa dhammaan waxyaabaha soo gelinay YouTube-ka iyo aad ka baranaysaa xogiye kaasoo ka wada daawanaysid social media la soo xiriiri kartid waxyaabihii oo dhan ayaad ka socon kartaa marka waxa la yiraahdaa blogger waa website saas oo kale aad ugu qorqoraysid waxaan ka dhigi kartaa qoraal haddaad caafimaadka diyaar garinaysid caafimaadkaad ku soo qoraysaa haddii aad YouTuber tahay sidoo kale wuxuu ka caawinayaa inay YouTube-kaaga ay helaan subscribe ladan halkan aad ku samaysanaysaa subscribe links marka qofkaas oo halkaas uu klik garanaya markaas wuxuu ku noqonayaa subscribe hadduu ku subscribe garaysan yahay ku oranaya waa aan maanka noqda subscribe hadii kale subscribe noqon halkaas aad casharada ku soo gudbisay YouTube-kana ka daawan karaa marka kaas maanta sida loo sameeyo ayaan ku baran doonaa casharkeena la socod wanaagsan fadlan dadka heshay casharada waan sii wadi doonaa ilaa aynu dhisay noocan oo kala sameeyno noocan oo kala oo aad mar walba maalin walba markaad heleysid waqtiga aad soo gelisid wax umada u faa'iideynaya aad dadkuna kula socdaan ama warar aad ku soo gudbisid news marka ugu dambeysana waad ka heli kartaa haddii ay kugu xidhmaan kumanaan qof oo dad fara badan aad aragtid inay kugu xidhmaan waxaad samayn kartaa lacag ayaad ka samayn karaysaa markaas waxaan eeganaa sida loo samaysto waxaad marka ugu horeysa stepka koowaad haddii aad rabtid inaad samaysatid kaasoo kale waxaad u baahan tahay inaad samaysatid Gmail sababtoo ah Google ayaa leh blogspot-kan Google maadaama leeyahay Gmail buu ku xidhay Gmail waa inaad haysataa marka ugu horeysa marka Gmail-kaaga soo gashid waxaad tagaysaa 8 dhibcood ayaad soo kala garanaysaa 9 dhibcood weeyaan 9ka dhibcood soo kala garanaysaa hoos baad soo dhaqanaysaa bloggerkaas ayaad soo kala garanaysaa maadaama step by step ku baranayno oo bilow ka soo bilaabano nashqadeynteena balanayno marka wuxuu ku keenayaa marka halka ku soo dhufitid bartan ayuu ku keenayaa halka marka ku keeno waxaad ku dhufanaysaa halka ku qoran tahay create your blogayga ii samee marka mid waxaan sameynaynaa imika blogger tusaale aan bilowno ayaan sameynaa marka wuxuu ku keenayaa halka Gmail-keeda rabtaa inaad ku samaysatid dunia marka ka labaad baan rabaa ka faa'iid online-ka ayaan doonaya inaan ku sameeyo kaas marka kiibu tagaysaa password-kaaga iyo xagaad gelinaysaa kabacdina
next baad oranaysaa بعد markaad passwordkaaga iyo next gaabgeli halka ugu horeysa wuxuu ku dinaya choose name your blog magac dooro ku magacan wuxuu ku sameeyaa waa wuxuu soo bandhigay xaga ugu sareysa soo qoray imika hadda ku qoro ciwaan waad bedeli karaysaa mar walbana waad bedeli karaysaa wax dhibaato ma leh imika marka wax ku qoraynaa hadii aad ku xiyaasiinaysid warar oo kale ama ciyaaro aad ku soo gudbinaysid ama aad ku soo gudbinaysid caafimaad aad ku dhiganaysid imika wax ku qorayaa wararka ciyaaraha baan qolaan ka dhiganayaa baano ciwaanka sare wararka ciyaaraha ka bacdi next ma noqonaya marka next tiraahdo wuxuu ku sameynayaa samayso username ciyaaraha next marka tiraahdo username kaasu waa kaas inta dambe adu markaan google control inta hore baad controleysaa marka halkaas aad ku qoranaysaa ciyaaraha oo kaliya taad ka dhiganaysaa هذا interface sida duu kaasu leeyahay uu joojinayaa wuxuu qornaa sorry this box is not available qof kala qaatay yani ma ha diyaar marka waxaad ku dinaysaa waxaad ka dhigaysaa wararka ciyaaraha kala dhigaysaa saasoo kale wararka ciyaaraha waliga sorry kana waa la qaatay bukuri marka ilaa qofka aad heshid mid ku saxsan asaanka markuu soo saaro waa la qaatay ayuu ka wadaa wararka ciyaar baan ka dhigan hadii hadhow tolo uu ku qancin waayo magacani waad bedeli karaysaa wax dhibaato ma leh wararka ciyaar baan ka dhignay marka hadii hadhow ku qancin waayo oo aad fahmi weydo magaca waad bedeli karaysaa wax dhibaato ma leh next baan roonaa ka bacdi display name ka magaca xagga sare soo dhigayo weeyaan hoyga ciyaaraha baan ku qoraynaa ka bacdina finish aad ku dhufanaysaa marka soo dhameysatid sidaas waxa weeyaan sida loo sameeyo blogspot waad samaysatay wuxuu kaaga baahan yahay imka nashqadeyntii iyo hagaajintii kaaga baahan waxaan waa Yoruba waad iska wada xiraysaa shuruudo dheeraad waad akhrisanaysaa hadii aad u baahantahay waad xiraysaa tigala waad iska akhrisanaysaa static qaybtan marka saas ayaa loo sameystaa blogspot هذا دون سيدنا بوقتي بلوجر بودكاست سنتي حاجة وصل لمن ساكن بعدنا فيو أيات كل فنسا حاجة وصل لسوي حكوسة قرية ورك عيارك ده بلوج سبارك ورك عيارنا حاجة وصل قرية مركب وحي أتسوق لسي هل كان أي سوق ذا كليا لكن نشقطا إمك كم قناع سنين مركب واحد سمينا نشقط قروح بدن أو عيارها سوريتان كيجا أنفعيا هل كان سوق قبلنا 10 كل حاجة wax walba hadaad caafimaad qoraysid hadaad increase qoraysid kaas oo website kaas oo ku gaar ah noqonaya blogger kaas oo ku free ah lifetime kaaga inta nooshay sida kan ka faa'iido qanoo kale aan leenahay oo kaas oo kala saas oo kala dhisanka marka casharkeeni hore waxaan bilownay sida loo samaysto ayaga bar hadii aanad hore u taaban kaas oo baro loo garanay sida loo samaysto magaca ka faa'iido qoon inta loo samaysanay ka faa'iido qoon blogspot.com loo samaysanayo video muuqaalka xaga sare ayaad ka soo daawanaysaa ما تعرف كان كوبي لنا وحويان سينو سمين لنا نشقة أما ديزاينكا بلوجر كي هراء عن سميني وديار قرينا إنه أين ما تكبر لنا 10 كينين فالله هدي أتكون حسبتي سبسكرايب قري لايك شير ويا سؤال قطوين ده كومنتي كانوا صغر واد ما سنتاي marka maanta waxaan baran doonaa waxa soo galaysa marka ugu horeysa si aad u gashid gmail-kaaga hore ayaad soo galaysa marka gmail-kaaga soo gashid waxaad imanaysaa halka ay ku qoran tahay sagaalka dhibcood baad taabanaysaa kabacdina hoos aad soo tagaysaa halka ku qoran tahay blogger ayaad kala garanaysaa si aad ugu gashid blogger-kaagi gudihiisa marka haddii hore u sii samaysatay halkan oo kale ku keenaya wuxuu ku sheegayaa inaanay there is no posting waxba aan la soo dhigin waxa kale uu ku sheegay inaan visitors-kaaga ku soo booqatay halkaas ay noqonaysaa wixii ku soo booqday dadkii ku soo follow gareeyay wixii oo garanay wixii ku soo comment gareeyay halkaas aad kala soconaysay hadana wixii earning sameeyay ama lacagta markaad xayeysiiska ku xidhatid Google AdSense-ka ku xidhatid wixii aad ka heshid ayuu ku arkan sameeyay Google AdSense baa lagu xidhaa marka uu dadkaagu farabato uu wax farabadan ku xidhaa xagana waa pages-ka qaybaha uu page-ka ka kooban yahay weeyaan layout kaas waa design-ka halka laga edit gareeyo nashqada uu yahay blogger-kaagu ayaa la edit gareeyo qaybaha soo dhan baa la edit gareeyo xaga theme-na waxa weeyaan theme-kan waxa weeyaan halka nashqada laga soo geliyo weeyaan qaybtana waa setting-ka
qaybta kalena waa reading haddaad doonaysid inaad booqatid noocu u eegyahay bloggerkaagina xagana tagaysaa view markaas aad ku dhufato wuxuu kuu furayaa qayb cusub oo wararka ciyaaraha bloggerkii markii hore aan furnay oo marka dadka kale arkaya adiga maaha markay dadka kale arkayaan wuxuu soo qorayaa wararka ciyaaraha waka blogger.com halkan wararka caafimaadka baad ku qoraysaa qoraalo caafimaada health tips baad ku qoraysaa haddaad wariye tahay wararka maanta iska qoraysaa xogo fiican baad gelinaysaa oo dadka oo dhan ay ka faa'iideystaan adiguna hadhowtooda markay dad fara badan ku xidhnaadaan ee ay soo booqdaan bishii 2000 ama 1500 ayaad AdSense ku xiranaysaa kabacdina waxaad ka helaysaa lacag marka sidaan sameynaa marka bloggerkeenu imika waa sidaas nashqadiisu sidaas ay tahay waxaan doonaynaa inaan ka dhigno sida tan oo kale uu qurux bato marka kaas marka ugu hor koowaad waxaad soo noqonaysaa blogger stepkii koowaad baad soo noqonaysaa waxaad tagaysaa gmail-kaaga waxaad tagaysaa 9 dhibcood marka hoos baad soo waxaad tagaysaa bloggerkaas aad klik garaysaa marka halka klik garaysaa wuxuu ku keenayaa xagan markuu keeno qaybta ay ku qoran tahay teamka ayaad ku qoranaysaa teamkan maxaa tahay teamkan waa nashqada qaabka uu ekaanayo bloggerkaaga oo sida kuwan oo kala kuwan isaga leh kuwan free buu isticmaalaya Google diyaar gareeyo teamskaas oo noocyadaas oo dhan waad ka dhigay ka dooratidba uu ku noqonaya marka laakiin kuwani si professional ah uma design gareysna marka qaar ka qurux badan baa jira sideed u heli karaysaa marka kuwa ka qurux badan ama template-ka ka qurux badan ee bloggerska waxaad tagaysaa Google waxaad ku qori kartaa free blogger template markaad ku qortid kabacdina uu ku soo dhigaya ka ugu fiican ee waa ka xagga sare soo maraya blogger gayobi template kala yiraahdo kaasaad ku dhufanaysaa ku beelato best free kaas leh kuwan kale oo dhan wuu leeyahay kolba nasaaqa design-ka ama noocaad ka heshid ayaad soo qaadanaysaa marka website-ka ku dhufatid wuxuu ku keenayaa bartan buu imanaya website-kan markuu ku keeno halkan aad imanaysaa website-kan maxaa tahay kan waa nashqadeedii marka kan aad gayoobiga saa ugu dhufanaysid wuxuu weeyaan ka sare saa u taabanaysaa marka saa u taabatid wuxuu ku keenayaa halkii nashqadeedkii nimankana waa programmer ama developers template-ka develop gareeyo oo sameeya kuwaas oo lacag ka sameeya marka haddii aad adu programmer khatar tahayna waa professional ah waad sameyn kartaa noocan oo kale ka bacdina website-dan oo kale u sameynaysaa lacag baad ka sameyn kartaa marka designadaas oo dhan bay diyaar gareeyeen oo ka qurux badan Kenya inagu aan wadwadnay marka mid ka jeclaatid ee aad u leedahay kaasa qurux badan ayaad kale garanaysaa marka qaab waa u iibinayaan laakiin waxay ku sameynayaan inaad free no isticmaashid marka free nam kaas oo kale marka wuxuu wax saddex qaybood kan live preview gaas waa inaad toos u aragtaa sidoo qaabku ay kaanayo kan wax weeyaan oo live preview marka ku qayb cusub ku furaya kaas wuxuu ku tusayaa sidoo ay kaanayo markaad iibsatid kana wax weeyaan download free baad ku download garaysanaysaa laakiin markaad free ku download garaysatid muxuu kaga duwan yahay wax kale kaga duwan wuxuu kaga duwan yahay free markaad ku download garaysatid wuxuu soo qaadanaya qaybta ugu hooseysa ee footer-ka ama under xagga hoose line-ka kama saarayo ku xayeysiisanaya oo halka marka blogger ku dhufatid template website-kiisu automatic uu furaya markaas taas intaas uu sameysanayo ku xayeysiisanaya shayada qaarna uu ka xiran yahay xayeysiiska iyo waxyaabahaas oo dhan ka xirnaanaya oo Google baalkaaga dhexdiisa kuma xayeysiin laakiin haddii aanad u baahnayn inaad xayeysiis iyo waxaan dan ka lahayn laakiin aad doonaysid inuu marka uu aan noqdo hadda markaas aad iibsan kartaa ayaad saa u xiranaysaa markaas saa marka taawsanaysatid ka bacdina hadda nashqada ka heshid nashqadan oo kale nashqadaas oo kale kan oo kale oo cajibiyo marka saa ka ku cajibiyo ayaad ku dhufanaysaa qaybtan downloadka marka saa ku dhufato waxa ku imanaysaa bartan ayuu ku keenayaa halkan uu keenayaa oo Facebook iyo waxa oo dhan baad ku wada xiranaysaa everything marka soo download garaysatid computer-ka kugu noqon download-ka ku dhufatid marka download-ka ku dhufatid computer-ka ku galo waxaad imanaysaa blogger-kaaga wada imanaysaa qaybta themes-ki baan nimid ka bacdina waxaad imanaysaa la subscribe adiga oo taabanaya halkaas bartaayraas baa saa u kala garaynaysaa marka saa u kala garaysid si aad ula socotid wax kasta oo soo gelino xagga ugu sareysa customize ku qoran tahay ayaad halkan yar furaysaa marka halkan furtid haddii aad develop garaysay ama aad soo diyaar garaysay qofka programmer-ka ama developer-ka ayaa garanaya code-kaaga marka soo diyaar garaysay halkaas halkee ku garaysanaysaa edit HTML kaas isticmaalaysaa kii hore aad garaysaa kanaad kaado diyaar garaysan ku diyaar garaysan baad ku copy garaysaa haddii uu sida kan imkaan sameeyay uu ku soo dhowrgorayso ku diyaar garaysan iyo waxaad ku dhufanaysaa restoration markaad ku dhufato waxaad ku dhufanaysaa uploaded marka upload ku dhufatid waxaad ku soo dhufanaysaa barta uu kugu jiray
programkaagii aad diyaar garaysatay ee aad soo dhulu garaysatay ayaad tegaysaa marka tagtid Maxine Art Premium kaas aan u isticmaalayaa marka kaas aysa ugu faraysaa marka kabacdina waxaad oranaysaa open boonaysaa markaad ururto wuxuu ku sameeyaa restoration ku sameeyaa waqti yar buu qaadanayaa uu ku restore gareynaya ama uu ku shubayo application-kaaga marka ku shubo wuxuu ku oranayaa one temporary gaagi one aan update gareynay marka halkii aad imanaysa marka hore shaqada sidan waxa iminka marka soo receipt gareysina wuu isbedelaya marka hore sidaas waxa iminka markii dambe receipt gareeyay wuxuu sameeyay uu qurux badnaysay marka Maxine Art xayeysiis loogadiisii soo dhigay looga samaysanaysa bartana soo gelinaysa home kan iyo top kan iyo top 10 iyo USD tourism waxaan oo dhan waa wada edit gareynaysa page-kan waad ka bedeli karaysaa qaybaha waad ka bedeli karaysaa waxyaabahan oo dhan waad ka bedeli karaysaa marka maanta casharkan ku bedelay waxweeyaan sida nashqada loo soo download gareysto loona geliyo bloggerka halkaas ku soo gudbin casharada wax ku bardoona sida loo edit gareeyo title-ada ciwaanka iyo site-ka dhinacyada qaybta site-ka la site barkan dhinacyadiisa maanta markaad soo gashin marka waxaad soo booqanaysaa gmail-kaagii kabacdina waxa 9 ka dhibcood ayaad click gareynaysaa kabacdina waxaad dhufanaysaa blogger barta ku qortay si aad ugu gashid qaybta admin-ka ee blogger-ka aad samaysatay aad u dhex gashid ayaad samaysanaysaa qaybtaas markaad doonaysid aad halka soo gashid waxa weeyaan qaybtaas waa new posting samee post cusub ama create markaad post cusub sameynaysid ayaad halka ku dhufanaysaa halkan kalena waxa ku arkaysaa wixii postigii hore dhan wixii aad soo dejisay ee soo gelisay oo dhan ayaad ku arkaysaa qaybtan static baa la yiraahdaa waa qaybta wixii ku soo booqday aad arkaysid commentiga halkan wixii ku soo comment gareeyay ayaad arkaysaa xagan earning-ka waxaad arkaysaa wixii aad dakhli ka heshay markaad Google AdSense ku xiratid wixii dakhliyaad ka heshay ayaad ka arkaysaa pages-kaas waa page-ka meesha headline-ka laga samaysto page-ka la booqanayo layout-kuna waa nashqada kolba qaabku way kaanayo meesha laga hagaajiyo theme-na waan iga baranay waa halka nashqada laga soo geliyo setting-kuna waa setting-ka halka laga habeynayay qaabkiisa iyo reading list-giisii gudubada waa akhriyaya iyo view blog bartii laga tagayay markaad doonaysid qaabku uu eegyahay kii hore aan sameynay hadii doonaynay inaan ogaadno toddobaadkii hore view blog baad ku fanaysaa markaad view blog ku fatid bloggeeni noocan u eekaa waxaad kali jira loogadii waxa ku qoran template-ka ama nashqadii hore aan isticmaalaynay loogadeedii baa ku qoran ciwaanadiisii baa ku qoran qaybtan waxa ku qoran sidebar-kiisii qaybihiisii wax post-iyo ma soo gelin ka tijaabada soo geliyay mooyaane bila sawirka markaas kan doonaynay inaan habayno oo ka bedelno maadaama ay customizations ama habayn waxay noqonaysaa inaan sameeyno loogadeena ku bedelna xagana ciwaanadeena inuu ku bedelno qaybtana kii aan rabnaa inaan soo gashano kii kale inaan ka saarno meesha qaybtan kale waxa weeyaan headline abarka ah oo home-kii iyo about-kii iyo contact-kii iyo privacy display karo kuwii aan rabnaa inaan ka saarno ka delete gareyno kuwii aan rabnaa inaan ku deysano halkan kalena waa social media-geeni si dadku inagu soo booqdaan in social media-geena halkan ku darno maanta casharkan ku baranayna waa inta markaad soo gashid bloggaagii hadaba markaad soo gashid 9 dhibcood aad ku dhufatid 9 dhibcood aad ku dhufatid kabacdina aad halka ka dooratid blogger wuxuu ku keenayaa bartan buu keenayaa bartani waxa weeyaan barta laga maamulo blogger-kaaga ama website-kaagan uu Google leeyahay aad ka maamulaysid marka nashqadeeni hore waxay ahayd sidan talaabada koowaad ee aan qaadayna markaad soo diyaar gelisid waxa weeyaan in aad loogada ka bedeshid sidee loogada looga bedelaa waxa looga bedelaa waxa dhamaysaa halkii laga maamulayay kabacdi waxa tagaysaa barta ku qoran tahay layout kabacdi markaa kala gareysid wuxuu ku soo dhigayaa gudihiisa ku soo dhigayaa nashqada barta la gargareeyay template-kan isticmaalayna waxa la raacdaa Maxine Art Premium template qayb eBay jirta marka laakiin waxaan isticmaalaynaa qaybta free-ga hoos baa soo soconaysaa qaybta ku qoran tahay logo ayaad click gareynaysaa hadii aad doonaysid inaad loogada ka bedeshid blogger-ka sababta nashqadan dad hore diyaar gareeyay oo expert ah oo programmer ama developer ah kabacdi markaas way iibinayaan suuq ay ku iibinayaan laakiin qaybta free way soconayaan taas aad ka faa'iideysanaysaa hadii uu blogger-kaagu farabatana aad baadana dad farabadan ku dhanaadana way iibsanaysaa laakiin adoo waxba iibsan ayaa
ku shaqaysan karaysaa ama uu ku anfacaya marka halka loogada la soo geliyo halkaas waa halkii blog title-ka ciwaanka hore lagaga qorayay waad bedeli karaysaa halkaas aad kaga qori karaysaa xagan blog description-ka waad ku qoraysaa description logo waad iska deyn karaysaa laakiin haddii aad loogada xiisaynaysid halkan aad ka bedeli karaysaa marka loogada max ayaan uga bedeli karay marka u horeysa tiisa hore waxaad ku samaynaysaa remove image marka remove image ku samaysid wuxuu ku siinayaa meeshii choose file ku qoranayaa meesha laga doonayo file marka halkaas choose file ku qorantahay ayaad click garanaysaa markaad click garayso wuxuu ku dhex keenayaa computerkaaga meesha aad ugu talagashay ee logooyinka kugu save garaysan yihiin kabacdi hoos aad soo soconaysaa loogada aad rabtid ee aad doonaysid ayaad ka dhiganaysaa marka kaas aan dooranaya kaas aan click gareeyay kabacdi okay aan siinaya marka saa click gareeyo cabirkiisa kii haddii ku diido size-ka mid ka yar ayaad samaysanaysaa marka saas ugu samaysan video ayaan ka dhiganaynaa loogada imika kabacdina waa tusaale ahaan loogada ciyaaraha oo xariiba ayaad diyaar gareynaysaa ciyaaraha wararka ciyaaraha loogadiisa ayaad diyaar gareynaysaa tan waxaan usoo geliyay tusaale ahaan kabacdina waxaad ku dhufanaysaa barta ku qoran tahay save waxaana dooranaysaa instead of title descriptions bedelka title-ka iyo description-ka halkan soo geli loogada haddii aad doonaysid loogadaada waxaa ka dambaysiinaysaa qoraaladaada soo horeynaya title-ka iyo description-ka aad ku qortaa soo horeynaya haddii kalena bedelkooga iska daynaysaa loogada sanifka isticmaalka ama siduu isticmaalay ninkii developer chemica kabacdina haddii description keliya aad doonaysid iyo sawirka qaybtaas ku dhufanaysa waxaa ka tegaya ciwaanka title-ka ka tegaya wararka ciyaaraha kabacdi save ayaad oranaysaa marka saa u save garaysatid halkaa ay ku qorantay view ayaad click garanaysaa si aad u aragtid qaabka uu noqonayo bloggerkaagi marka aad save garaysid ee aad loogada gelisid haddii kale keenii hore ee sidan ayaan sameynaynaa waxaan ku sameynaynaa reset garaynaa marka loogadayni loogo weyn baan soo geliyay intaa yar ayaa ka muuqata marka waan bedelayaa tii hore sababtoo ah waxaan muuqanaan qaybo كفاية أقول لغة يعني سوق لي كما كاسن كنت جايبنا إن يدوش السرع إنه صباح كحاجة نايمة نسا كبعدنا الرصيد بدر نسا وكاس لغة ديني وين كبدل لي كي هو آد بيو برن آد بيو ينيد مركا إن يربى لجاركي مركا كلام حكوا بدلي كفاية أقول لغة كبدلي مركا لغة دي سداسة أيها لغة بدلا بلغة كاجي هدي آد وباهن تاي سيد لغة بدلو بلغة صاروا miniga ama title-da ciwaankaas ayaan u bedelno oo aan u gashano inoo kuwa aan rabnay aan ku qoranno ayaan maanta casharkan ku baranaynaa sid marka doonaysid adminkii waxa soo galaysaa gudaha soo galaysaa hadii kalena garanaysa lagu soo galana sagaalka dhibcad baa taabanaysaa kabacdi hoos soo soconaysaa waxaad ku dhufanaysaa blogger wuxuu ku keenayaa bartan markuu bartan ku keeno waxaad ku dhufanaysaa barta ku qorantay layout baad ku qoranaysaa marka layout ku dhufatid wuxuu ku keenayaa xaggan marka saad menu-gu bartid qaybta ku qorantay main menu ayaad bedelaysaa kabacdina waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku qorantay edit markaad ku dhufatid waxaad samayn kartaa ciwaanadoo dhan baad bedeli karaysaa xabxabad baad bedeli karaysaa kuwa doonto baad bedelaysaa marka haddii uu tobatan waxaanad bedeli karin keliyata homeka mid walba uu leeyahay homeka marka home ma bedelina laakiin wixii ka titilada ku xiga ka hor ma bedeli kartid waa homekii laakiin intan kale ayaad bedeli karaysaa iyo kuwa sare titilada iyo social media kabacdina waan soo noqonayaa marka soo noqdo topkaasaan bedelayaa top maaha ciyaaraha waxaan halka ku bedelayaa wararka ciyaaraha ayaan doonayna ka dhigo marka halka ku qorantay edit ayaan soo taabanayaa kabacdi halka waan ka masaxayaa waxaan ku qorayaa wararka ciyaaraha maadaama blogaygan yahay warar blog aan kaga warramayo ciyaaraha oo aan soo gelinayo maqaalo ciyaaraha oo dadku faa'iideynaya amba dadka dhalinyarta jecel ciyaaraha ay soo gelinayso barta waxaan soo gelinayaa linkigan soo gelinayo waxa weeyaan wararka ciyaaraha marka sameynaya haddana laakiin marka saa ku daayay ciwaanku baan bedelay waan save gareeyay kabacdina linkiga haddana bedelin wuxuu geenayaa website-kaas oo booqanaya markaas saa u click gareeyo haddana save aan yiraahdo aan ku soo noqdo kabacdina refresh yiraahdo ciwaankii uu bedelay waa ka wararka ciyaaraha uu isbedelay wararka ciyaarihii ma ku bedelay laakiin cilada ayaa jirta ciladayna haysada weeyaan hadduu qof isiraahdo soo booqo wararka akhriso oo saa u click gareeyo wuxuu geenayaa website kale linkiga ku xidhnaa ayuu geenayaa kaas oo kala marka inuu sida ay geeyma doonayo waxaan doonayaa halka aan ku soo diyaar gareeyay wararka oo dhan inuu keeno
qaybtaas oo ah category-gaas haddaan kuu samaysnayn waxaad samaynaysaa waxaad imanaysaa xaggan baad imanaysaa layout waxaad samaynaysaa new post baad samaynaysaa marka postiga samaynaysid ama aad qoraal soo gelinaysid ayaa la samaystaa labelka ama layoutka label wax la yiraahdo labelkaasana ku anfacaya oo aad ka samaysanaysaa marka imka mid tusaale aan sameynaynaa oo ah ku wararka ciyaaraha suma wararka ciyaaraha adduunka aan ka dhigan halka ciwaanka aad bartaasaad ku qoraysaa halka waxaan ku qorayaa mid ka hore inoo samaysnaa wararka ciyaaraha laakiin imika kan tusaalahaas aynu siiyo waxaan qorayaa wararka ciyaaraha wararka dunida wararka dunida weeyaan kabacdi postigii aan rabay aan soo gelinaya wararka dunida marka waxa soo booqataa inaad website soo booqatid weeyaan on xogta soo ururno Zimbabwe Pakistan ciyaaraysa soo gelinaya qoraalka tusaalahan aynu siinaya soo edit copy garay fadlan laakiin adigu hadii aad doonayso inaad ku anfaco bal lacag samaysatid waxaad leedahay aad soo gelinaysaa copyright haddaad soo gelisatid ku shaqeyn maayo saakoogo kabacdi marka soo copy garay qaybtii copy aan imanay xagan waa qaybtii lagu qoray description ba xogta aad ku qoraysay hadii kale word inta aad ku diyaar garisatay ayaad ku soo copy garisatay marka copy baa oranaya xagan iminka tusaalahan ayaan inuu siinay xagan wax faa'iido uga ma jirno wararka dunida marka soo samaysatid ayaan sameynaya publish waynaad marka ugu horeysay markaad title ka samaysatid waa inaad soo samaysataa qaybta labelka soo kala iminka laba label bay samaysan labada label sida loo isticmaalayo ayaan ku tusayaa labelkeeni hore waa kan ciyaartii aan diyaar gareyno waa kan waayo postigii baan joognaa wixii aan soo gelinay kaas waa wararka dunida kana waa category-giisa ama qaybaha u qaybsamo page-ka marka si aad ciwaanka markuu soo kala gareynaysid uu ku geenayo website-ka kale marka uu ku geenayo website-ka kaleeyo xalinta waxa ku xalin karaysaa si uu ku keeno meesha wararka ciyaaraha ay ku jiraan waxaad marka soo samaysatid blog postiga stood gelinaysid waxaad ka soo dooranaysaa hoyga ciyaaraha ayaad mid walba dooranaysaa marka waxaan furayaa kaas aan ku dhufanaya hoyga ciyaaraha الله سبسكرايب adiga oo taabanaya halka bartaayar bartaayas baa soo klik gareynaysa marka soo klik gareysid si aad ula socotid wax kasta soo gelino ciwaankiisa sameynaya wararka ciyaaraha ugu dambeeyaan ka dhigaya wararka ciyaaraha ugu dambeeyay halkan information ki ciyaaraha ayaan gelinaya tusaalahaan kuwan baan tusaalahaan soo qaadanayna marka soo gareeyno kabacdi halka waxaan ku qoranayaa wararka ciyaaraha kabacdi waxaan oranayaa update marka aan raahdo uu save gareeyo waxaan marka uu save gareeyo ee update raahno waxaan taginaa ciwaankeena sida inoo soo dhigto aan soo noqono waxaan qabanaynaa website-keena oo noqono kabacdi waxaan oranayaa refresh wuxuu ku soo daray labada qaybood ku soo dhaay qaybtan waa qaybtii hore cricket-ka qaybtan waa kii wararka mid walba ciwaankiisa category-giisa waa maxay waa hoyga ciyaaraha oo website-keena laakiin marka saa gudaha u gashid meesha doonaysid marka u kili gareysid waxa weeyaan gudihii wararka ciyaaraha keenay marka linkiga sare ayaan u baahanay linkiga sare ee postiga wixii aad wararka ciyaaraha soo geliso oo dhan ee xagan soo galaya oo sana leadka hoos soo hadmanaya markaas waxaad ka sare u kili gareynaysaa way copy gareynaysaa waxaad imanaysaa postiga baad imanaysaa qaybtan waxaad imanaysaa admin-kii baad imanaysaa layout ka imanaysaa kabacdina waxaad ku qoraysaa halka main bay ku qoraysaa si aanu markaan soo booqano uu u booqon website kale qaybta wararka ciyaaraha ku qorantay baad edit ku dhufanaysaa kabacdina halkaas linkigaas aad ka masaxaysaa kaagi ayaad ku copy gareynaysaa haddii kale kuwan kala doonaysid inaanu soo wada noqonna oo doonaysid in laga bedelana kana way isbedelaysaa halkaas ka bedelaysaa click gareynaysaa wararka ciyaaraha adduunka ku qoraysaa wararka dunida oo kale tii markii dhootaan sameynay halkan soo kalmaadna click wasinaysaa habada xagga kala qabanaysaa home ba tagaya kii wararka dunida aan ku qoray waa kan dan soo click garanaya haddii kale xaggan dad iska teenaysaa home ku noqo category-giisa soo click gareysid bartaada imanaysaa bartaas ayaa lagu kala garanaya xaggan imanaysaa category-giisa waa maxay wararka dunida kaas aad kala garanaysaa marka category-giisa linkigaas soo copy garanaysaa wixii category-ga soo gala oo dhan aniga halkan iyo keen waxay noqonaysaa wararka dunida kan baad edit garanaysaa kabacdi wararka dunida kan baad copy garanaysaa copy baad oranaysaa kabacdi save xaggan save kan haddii aanad u baahnayn oo imika ciwaanka
marka soo qaadno mid kale aan ku daray kaasuna wuxuu masaxmeeyaa wararka dunida ku soo diray haddii aan labadan u baahnayn amba aan kuwaasna contact policy-ga mooyaane aan labada kale u baahnayn sideen iskaga saaraya iyagana waxa iskaga saaraysaa waxa ku soo noqonaysa bartaadii kabacdina bloggerka edit ka hormaraysa hoos baad imanaysaa kabacdi waxaan saarayaa health-ga kale saasada ka delete oranaysa ka baxaya marka kan kale money pass ka tiraadina pass-kaadna waad ka saaraysaa kabacdina save baad oranaysaa halkaasna save baad ku silfanaysaa kabacdina waa imanaysaa right click baad siinaysaa ciwaankii saafi ayuu ku noqday marka kuwii aad rabtid policy kuwana waad ka saari kartaa haddii kale labadaas aad ku diin kartaa sidaad uga delete garanayay ayaad uga delete garanaysaa marka saa u timaadid labadii qorwaad markaad website-ka doon ku soo noqo home kaale markii hore markaan wararka ciyaaraha ku dhufto wuxuu geynaya website kale imika laakiin wararka ciyaaraha markaan ku dhufto wuxuu geenaya wararka ciyaaraha tooska ee aan taabacay ayuu ina geenaya saas ku geenaya marka wuxuu noqonayaa website-kaagi clean buu sidaa ku noqonaya hagaasaan kusoo gabagabeynayna maanta cashirkeeni sida loogu bedelo headline-ka bloggerka maanta waxaan ku baranaynaa sida social media ama socialka loogu darsado xagga sare loogu bedelo oo kuwaaga aad ku darsanaysid kuwana loo bedelo kuwii aanad rabinna looga bedelo dhinacaas sababta imika haddaan bloggeeni hore casharada imtixaan sii socday haddii aanad casharkan hore usoo fahansanayn kuwii hore ku noqo haddaad fahansatayna sida looga bedelo oo aad kusoo darsanaysid facebookkaaga iyo twitterkaaga iyo waxaaga aad halkan ugu soo darsanaysaan bayna instagramkaaga ayaan maanta ku baran doonaa casharkan markaad halkan soo timaadid haddii aad imika booqdo home-ka ama contactiga wuxuu geenayaa qofkii kale amba facebook haddaan ku dhufto wuxuu geenayaa facebookii qof ayuu dhex geenayaa marka facebooka ma doonayo inuu dhex geeyo waxaan doonayaa exactly page-ka facebookeyga ee aan ku leeyahay ka samaystay wararkan ciyaarahan u sameeyey ayaan doonayaa in uu geeyo marka sidaan u sameeynaya waxaad imanaysaa admin-kii baad imanaysaa sidii lagu imanayna oo hore kugu soo sheegay admin-ka waxaa imanaysaa sagaalkaas aad imanaysaa kabacdina hoos buu soo degaysaa bloggerkaas oo kuqoraysaa wuxuu ku keenayaa bartan markuu keeno waxaad tegaysaa qaybtaas ku qoran tahay layout baad tegaysaa marka qaybta layout-ka ku keenay ayaa saa u kala garanaysaa hoos baad soo degaysaa qaybta ku qoran tahay social media icon-ka ayaad kala garanaysaa gebigoogaba step by saa u kala garanaysaa mid walba wuu design garaysan waa pre-designing template bala yiraahdaa wax la sii diyaar gareeyay adigu kaliya xogtaada inaad ku buuxisid ayuu u baahan tahay waxani hoos baa soo soconaysa barta ku qoran tahay facebook ayaad hoos haddii aanad ka lahayn waad ka remove garan karaysaa haddii kale waxaad ku bedeli karaysaa saas ku bedelaysaa kaabaad ka masixi kartaa waxaad gelin kartaa bartan aad sheegaysay website oo kale iskaga qoraysaa haddaad website-kaaga leedahay website-kaaga linkigaagana xaggana soo gelaysaa tusaale ahaan haddaan geeyo website aan soo geliyo waxaan soo gelin kartaa ka faa'iido aqoon website-kiisa .com kabacdina copy aan soo siinaya waxaan imanayaa xaggan waan imanayaa linkiga soo wada copy gare saas ugu copy garaysa kabacdina save badanaysa bartii sare waxaan ku bedelnay website facebookaagi ma doonayo inuu facebook kaliya booqdo halkaasaad kala garanaysaa ciwaanka facebook ma masaxaysid laakiin halkaas kaasaad masaxaysaa waxaad tegaysaa facebook page-kaaga oo tegaysaa facebook page-kaagi waa kan kii ka faa'iido aqoon kabacdina waa soo kala garanaya ama waxaad ku qoraysaa www.facebook.com/kafaid ama username-kaaga aad isticmaalaysid kabacdina wuu soo copy garaynaynaa kabacdina waxaad imanaysaa halkii url-ka oo ku copy garaynaysaa markaas aad u kala copysatid save baad oranaysaa twitterkiina waad kusoo copy garanaysaa haddii aanad twitter lahayn intaad samaysanaysid oo ayaanad twitter kale u booqan waxaad ku qoraysaa hashtag baad ku qoraysaa ama afargees ayaad taabanaysaa kan kale haddaan g plus-kaas inuguma isticmaalno kabacdi waa ka remove garanaysaa delete baad oranaysaa instagram-kaaga na waad ku diinaysaa amba instagram booqanaya diinaysaa haddii kale aad intaad instagram-kaaga username-kiisa samaysanaysid ayaad ku qoraysaa haddii kale waxaan ku qorayaa kii ka faa'iido aqoon instagram aad ka faa'iid baan ku qorayaa instagram / baad qoraysaa ka faa'iid marka wuxuu ku soo baxaya user toos ku galaya admin-kaaga saasad u qoraysaa instagram / ka faa'iid aqoon marka ka faa'iid aqoon instagram-kiisii ayaa ku soo gelaya casharo fara badanna fadlan haddanaad follow haynaa soo follow garay soo linkiga soo copy garaynaysaa copy baa soo imanaysaa waxaad imanaysaa bloggerkaaga instagram-kaagiisii ayaad ku bedelaysaa kabacdina copy baad oranaysaa kabacdi waxaa ku samaynaysaa save baan oranayaa kana safe baan oranayaa kabacdi markaa hoos oo active noqonaya safe
gebigiisa markaas aad soo bedeshid gebigiisa wixii oo dhan wada bedelay xagan imanaysa bloggan imika waa kaas wax macal website kuma jiro qayb far badan baa ku jirta marka reset gareeyo isoo bedelay reset marka saddexdaas mid baan ka soo reebnay saddexda mid haddii aan kala gareeyo markii hore Facebook-geena wuxuu inageynaya meel kale imika haddaan kala gareeyo wuxuu inageynayaa oo kala gareeyo Facebook page-kayga ayuu inageynaya haddaan kan kalena kala gareeyo imika dib back dheh ninka inagey kaasu haddii aan kan kala gareeyo isna Twitter-kiina inama geynaya meelna sababtoo hashtag baan aan gelinay hashtag-nu maaha link marka halkaas uu ku taagnaanaya click bila shaqeyn aan shaqeyn barwanaya ilaa inta soo samaysanaysid Twitter-kaaga aad ka bacdina gelinaysid ka bacdina waxa ku dhufanaysaa Instagram-ka markaad dhufatid toos buu Instagram-kii ka faa'iido aqoon uu ku geynay sida looga bedelo social media-guna waa sida casharkeena ku xiga waxaan ku baran doonaa sida loo bedelayo qaybta slide-ka ama sidebar-ka ama qaybta dhinacyadaas loo bedeli doono ayaan ku baranayna halkaas aan ka soo gabagabnay tutorial-keeni fadlan haddaad ku cusub tahay like share haddii uu ku faa'iideeyay anaga kaliya ta waxaan noo faa'iidaa subscribe fadlan saar subscribe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ayaan ku dareynaa war samaynta website-ka ayaan ku dareynaa kabacdi marka aan markiisa yimaado waxaan ku dhufanayaa qaybta ku qorantay layout marka uu qoranto maadaama teamka Maxen Arc Premium Template markii hore isticmaalay waxaan imanayaa qaybta ku qorantay Top Navigate Bars-kaas ayaan sida u kala gareynayaa kabacdi hoos waan soo soconaya wax kale ma qabanayo barta ku qorantay Add New Term ayaan halkaas u kala gareynayaa hoos waan soo soconaya wixii baneynaya qaybta gelin magacaaga marka waxaan ku qorayaa warar samaynta website-ka English maanta waan ka dhigay waxaan ku dhigayaa create website marka ka tanaad halkan link buu baahiyay linkigan aan helaya waxa weeyaan markaan postiga soo geliyo link uu imanayo ayaan doonayaa inaan helo linkigaas oo ah qaybta halkaas imanaysa oo aan ka sameeyay qaybtan waxa weeyaan levelkeen marka hore sameeyay halkaas soo wada gelinaya levelkeed marka qaybtaas aan klik garanaya website ku qorantay linkiga sare ayaan soo copy garanayaa si uu wixii postiga uu soo galo xagan wixii website samaynta ka hadlayo oo dhan ayuu xagan soo gelinaya marka linkiga sare soo copy garanaysaa layout-keed ku soo noqonaysaa xagaas aad soo wada garanaysaa kabacdina copy baa ku soo noqonaysaa kabacdina save ayaad garanaysaa save garanaysaa marka save garaysid kabacdina waxaad ku dhufanaysaa save again markaad soo noqotay kabacdina ku soo noqonaysaa website-keeni xagee ku soo noqonaysaa kabacdina refresh baan odhanaynaa imika wuxuu geliyay ka halkaas uu geliyay create website buu geliyay sababtoo meel khaldan ay gelin title-kii sare ayaan ku darnay kan hoose wuxuu inoogu soo diri waayay kan hoosena waxaan ku dari waayay layout hoos baan roganaa top navigate bar-ka ayaan ku darnay xagga sare marka hore ku darnay ana waan u sameeyay sidaas aad u fahantid in dhinacana ku dari kartid dhinaca sare dusha sare top affiliate navigator la yiraahdo inaad ku darto ka create website-keeni marka xaggan inaad saad ugu daraysid iyadana si aad u fahantid ayaan soo bedelay kabacdi marka halkan ayadna main menu waxay ku qorantay meesha menu-gaas waa ka sare kana main menu-gaas aad imanaysaa soo kala garanaysaa hoos bas sidii leegmooyaan arbaad ku dhufanaysaa hoos baa soo wadaysaa kabacdina halkan linkiga aan haysanay ku copy garanaysaa halkan waxaad gelinaysaa create website ku qoraysaa aan dusha sare ku darnay kabacdina save baad oranaysaa kabacdi canjiladiisana waa save garanaysaa markaana sida loogu darayo waa sidaas xagga sare loogu daro xagga hoosena loogu daro kabacdi dhinacana loogu daro dhinacan waan baranay sida topka sare uu ku soo gelayo qoraal kasta waxaa soo dhan aan soo wada gelinay qaybtana sida loo soo geliyo labadaaba sida loo geliyo anaga ku baranay kabacdina refresh sameynaysa waxa sameeyay create website kabacdi saas aad u kala garanaysaa website-ka saas ku tagay sida loo sameeyo dad fahmi weydid kugu celiyo waxaad tagaysaa layout markaad tagtid layout-kaas ku dhufanaysaa hoos baa soconaysaa haddaad doonaysid my menu-gaas oo qaar ku qorantaad kala garanaysaa
kabacdina waxaad ku hoos ma soo degaysaa halkaasaad ku qoranaysaa add new item baad oranaysaa kabacdina halkaasaad ku qoranaysaa save ayaad oranaysaa save markaad tirahdana save kaad oranaysaa labadaa save markaad siisid wuu kuu soo dhigaya sidaasaa loogu soo darsadaa abar titleka sarena loogu daraa kan hoosena loogu daraa bloggerkaaga halkaasaan kusoo gabagabeynaa tutorialkeeni maanta wassalaamu calaykum casharadii imtixaanaha ee ku saabsanayd sida loo samaysto blogspot-ka ama google blog website-kiisa google sidee aan markaan samaysto oo aan diyaar garaysto sidee ayaan uga samayn karayaa lacag markaasaad uga samayn karaysid lacag waxa weeyaan waxaa loo raacaysaa 2 jeer baad raacaysaa 2 hab baad uga samayn karaysaa habka koowaad waxa weeyaan waa inaad google adsense isdiiwaan gelisid kabacdina google adsense u soo dhex dhigo kuwaasoo kaaga baxan nashqadaas waa inay noqotaa mid professional ah oo google adsense uu approve yahay uu ogol yahay waa nashqada ama design-ka ama theme-ka waxa la yiraahdo tan labaad waxa weeyaan affiliate marketing waxa la yiraahdo isku samaynaysaa ayaad ku xayeysiinaysaa kaasoo affiliate marketing-ka marka adsense waa kaas xayeysiiska adsense halkaas soo dhigaya sidoo ku xayeysiinaya waa kaas ku xayeysiinaya waxaas oo dhan kuwan waa kuwa aad ku xayeysiinayso waa affiliate marketing waxaasuna markaas linkiyada uu saad u dhigaysid dhinacyada aad ku xayeysiinaysid iyo adsense-ka aad soo gelinaysid ayaad lacag uga samayn karaysaa bloggerkaaga tusaale ahaan iminka haddaan ku tuso kuwa linkiyada markaan saa u klik gareeyo iminka barashada inventory qofku israado taho wuxuu soo dhigayaa linkiyo fara badan soo dhigaya kuwaas oo adsense kaas namecheapka xayeysiinaya colorway-ga xayeysiinaya waxaasoo dhan kuwan kalena waa website iyaduna linkiyada xayeysiinaya waxaan kalena waa website kuwan waa weeyaan affiliate marketing weeyaan iyaguna kuwan aad la xayeysiinaya waxaan oo dhan waxaa ka caawinaya marka qofkii klik gareeya ee iibsada adiga commission ma kugu dhacaysa lacag markaas lacag ka helaysaa sida la isku diiwaangeliyo website-yada affiliate marketing-gana muuqaal kale ayaan kasoo diyaar garan doonaa fadlan like-ta ku badiya marka like-tiisu fara badato waa in aad loogu baahan yahay ayaan dareemaynaa kabacdina waxaan kasoo diyaar garanaynaa linkiyada meelaha la iska diiwaangeliyo affiliate marketing-ka aad kadibna ku xayeysiinaysid meeshaada sidaas waa habka la iska sameeyo lacagta marka ka adduunka qofku kala gariyo iibsado ama ka iibsado adiga lacag baad toos kugu dhacaysaa akoonkaaga kugu soo dhacaysaa kabacdi markuu darajada gaadho $100 ama maximum billion inta la bixi karayo 50 ama 100 markii gaadho la bixi karaysaa marka website jira sida looga sameeyo kuwana xayeysiiso google adsense-ka ayaa si automatic ah u soo dhex dhiganaya marka adsense habkaas waa habka loo sameeyo looga samaysto blogger marka samaysatid ama website aad samaysatid looga sameeyo lacag google adsense-kana aad ku xiranaysid halkaasaan kusoo gabagabeynaa haddii aad wixii su'aalo ka qabtid commentiga kusoo qor fadlan like share waxaan kaloo xayeysiinaynaa muuqaalkan youtube-ka channelka ee diiniga ayaan sameynay fadlan like saar Jamaaluddin TV fadlan subscribe gare oo kaa kusoo biir channel cusub inaan sameyno diinta ka hadlaya waxyaabaha diinta aan soo dhignay wadadii xadiisii tirada fadlan haddii like share si diinta u faafino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.